mahadsanid mudane wasiir ugu horaantii adiga iyo tiimka aad hogaaminayso waxaa idinku soo dhaweynayaa xarunta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya su-aasha ugu horeyso mudane gudoomiye meesha ku qoran waraaqdan hortaada taala oon ku bilaabi doono waxa waaye in heshiiska wasaaradda gaashaandhiga ay la saxiixatay wasiirka dhigeeda ah gaashaandhiga ee dowladda Itoobiya markay ahayd taariikhda 7 bisha December 2023 mudane gudoomiye mudane wasiir waxaan rabnaa in faahfaahin naga siiso heshiiskan asaga oo ahaa in wasiirka gaashaandhiga uu la galay wasiirka gaashaandhiga dhigiisa dalka Itoobiya ay dhinacyo badan la taabanayso runtii ay ahayd heshiis ku saabsan badda iyo militariga iyo pirates haddaan saxsaneen haddaan qalad ahna adiga isixi doontaa intana waxaan ugu qornayd in runtii koobiga aad noo keentiin oo maanta na hor taalo haddaan noo wadiina waad na siinaysin hadduu soft iyo hadduu hard yahay waa inoo soo gudbinaysaa marka mudane wasiir su-aashaas ugu horeysaan rabaa inaa faahfaahin naga siisid heshiiskaas wasaaradda war ma ka haysay sidaan ognahay ma jirto sharci markii dibadda lala galaayo aysan wasaarad arrimo dibad ogeen ma dhaqan qalo sharciga process uu leeyahay processka u horeeto wuxuu ka soo bilowdaa cabinetka oo ah golaha wasiirada markuu ka soo dhamaado ayaa waxaa loo keenaa waaxda shuruucda ee arrimo ama waxaa loo keenaa wasiirka kadibna waaxda shuruucda ee marta waa la soo fiiriyaa inuu shuruucda waafaqsan yahay kadibna waxaa loo gudbiyaa sharci yaqaanka guud ee xafiiska garyaqaanka guud ee xafiiska ra'iisul wasaaraha haddaba wasiir sharciga asaga ah ma wada sax uu maro idinka ma idin soo maro mase wuxuu ahaa sharci uu iska watay wasiirka gaashaandhiga uu la soo saxiixday wadanka aynu dariska nahay ee Ethiopia sharciga amniga security agreement loogu yeeray oo ka soo bilaawday Addis Ababa Ethiopia ka soo bilaawday annagu noo yimid annaga waxaan u gudbinay wasaaradda gaashaandhiga iyo wasaaradda amniga baadama sharcigu uu saameynayay labada wasaaradood waxaan u kala gudbinay labada wasaaradood wasaaradii way shireen waxay yiraahdeen sharcigan baadama uu laba qayb ka kooban yahay waa kala qaadaynaa way kala jibiyeen wixii defensigana wasaaraddeena gaashaandhiga ayaa soo diyaarisay wixii security-gana wasaaradda security ayaa soo diyaarisay kadib ayaa dib loogu celiyay dowladda Itoobiya ayaguna review ku sameeyeen way soo celiyeen way soo ogolaadeen kadib annagu shaqadeeda inta badan waa communication-ka iyo handal garaynaa marka anaga naloo soo celiyay waxaan dib ugu celinay wasaaradda gaashaandhiga ayadaa sharciga tarjuntay Soomaaliya ka dhigtay kadib u gudbisay wasaaradda cadaaladda waxay ka fiirsaa in shuruucda kale inta wadanka uu la saan qaadi karo markay cadaaladda soo gudbisay haddana waxaa loo gudbiyay garyaqaanka oo asna fiirinayo in shuruucdii wadanka iyo mataqaana degsanaa uu waafaqayo kadibna waxaa loo geeyaa cabinetka marka anaga contentiga heshiiska waxaa lagala xiriiraya wasaaradda gaashaandhiga annaga maaha laakiin processku maray process sax buu maray oo annaguna soo maray wasaaradda gaashaandhigu maray cadaaladdu maray garyaqaanku maray golaha wasiiradu maray laakiin contentii waxa ku qoran waxaa iskale wasaaradda gaashaandhiga ayada kala xiriirsan hadduu ilaaha yiraahdo anaga guddigeena wasiirka gaashaandhigna ma hoos imaado wasaaradda arrimaha dibaddana hoos imaadaa sababtaan kuu warsadan waxay tahay heshiis markii dibadda lala soo galaayo wuu niquseeyaa meesha aan ka warsado oo keli ayaa waxay ahayd sharcigan wuxuu sahmeyn intaanan hadda badeena la qaadanin faceka u horeeto nagala soo galo ahaa actually marka wasiirku maxaa ay leedahay sharcigan asaga ah annaga waan ogeyn wasaarad arrimo dibad haddaan nahay ilan waa qasab sharci markii heshiis caalami markii laga soo galaayo wadan kaleeta waa inuu idin soo mara taas shaki kuma jiro waa qasab marka mudane wasiir sharcigan idinkeedu wuu idin soo maray waana ka war haysay su-aasha intaas waa ogeed waa ka war haysay halistiisana waa ogeedeen inuu halis uu leeyahay waa ogeedeen ma kala talisan wasiirka gaashaandhiga inuu arrintan
uusan ku degdegin maadaama waxa laga hadlayo waa maritime Ethiopia ma qabto bad wasaaradda arrimaha dibadda maalmo 100 sharciya soo marta aqoonteedu iyo capacity-guna ma aha wax ka soo maro sharciga inaan ogaano contentigiisa anaga process-kan maamulna process sax ayuu maray marka contentiga waxaad kala xiriirsan wasaaradda gaashaandhigga mudane wasiir su'aasheedu ugu horeysa waxay tahay goobjoog miyaad ka ahaydeen adigoo ah wasiir dowlaha wasaaradda iyo safiirka Soomaaliya ee Djibouti iyo yaa kala joogay kulanka Djibouti ka dhaxmaray saddexda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti iyo madaxweynaha gobolada waqooyi ee Somaliland waxaa la socday wasiirka ganacsiga iyo waxaa la socday wasiirka la jira arrimaha gudaha fiqi iyo waxaa la socday u qaybsanaha envoyga madaxweynaha ee Somaliland yaa kala qayb galay madaxweynaha arrimaha dibadda cidna kaga ma joogin mahadsanid mudane wasiir su'aasheeda kale waxay tahay kulankii looga cabanayay fargelinta dawladda Itoobiya ee wasaaradda ay ugu yeertay ergada shisheeye ee dalkeena ku sugan maxay tahay sababta loogu yeeray safiirka Itoobiya u fadhiya Soomaaliya maadaama laga arinsanayay sidii falka loo cambaareyn lahaa loogana tashan lahaa qaabka loogu midoobo falcelintaas gurcan horta kulanku ma ahayn kulan wada tashi ma ahayn kulan wuxuu ahaa dawladda Soomaaliyeed ay beershankeeda ay u bandhigaysay mataqaana hay'adaha caalamiga annaga waxaan u yeernaa dhammaan diblomaasiyiinta waddanka ka diiwaan gashan ayaan u yeernay ayaguna dalka ka diiwaan gashay yihiin dalka lagama eriyin marka inay yimaadaan iyo tahay munaasib ayagu kii ay ku qabteen magaalada Addis Ababa wakiilkeena Addis Ababa uu fadhiyay shirkaas marka waa dhaqanka diblomaasiyadda ayaa ku saleysan markaad qabanaysid briefing wax ka qabanaysid haddii shir gooni aan qaban lahayn waa ka qarsan lahayn laakiin briefing guud aan qabanayno oo mar walba public noqon doona wixii aan ku hadalnayno goobashkan soo gelinay wax qarsoodi ma ahayn marka ma jirin sabab looga reebo safiirka Itoobiya inuu shirkaas yimaado mudane wasiir intii aad xilka joogteen dawladda Itoobiya siyaabo badan bay kula falgalasheen oo ama ay isugu timaadaan shirar caalami ah ama si toos ah loogu booqdo xarunteeda Addis Ababa marna ma kala xaajooteen faragelinta ay samayso dhaaxa dawladda Itoobiya haddaan su'aasha labaad raacsado waxay tahay maxaa indhaha uga qabsateen safaaradda ay Somaliland ku dhex leedahay Addis Ababa oo aydan mar qura u question kara waa maasantii horta marka hore safaarad kuma laha waxay ku leedahay qunsuliyadda dawladda Soomaaliyeed yaa ogolaatay heshiis dawladdaas ay la gashay maamuladii naga horeeyay yaa ogolaaday sidoo kale Kenya loo ogolaaday Turkiga loo ogolaaday waxaa loo ogolaaday Imaaraadka wadamo badan ayaa qunsuliyadda ku leh magaalada Hargeysa waana si sharci ay ku joogaan haddaad fiirsan MOU-gii ugu dambeeyay ay wada saxiixeen Farmaajo iyo Abiy way ku qoran tahay in mataqaanaa labada dal ay magaalooyinkooda waaweyn qunsuliyadu ka kala furan karaan marka saas ayaa lagu furay marka taas waa si sharci ay ku furan tahay safaaradna ma ahna waa qunsuliyad mudane wasiir qunsuliyadda ima furmay qunsuliyadda ka furan Hargeysa kuma warsan waxaan ku warsaday Addis Ababa laba safaaradood baa ku furan oo isku area ka wada furan mid waa teena inuu dawladda federaalka nooga furan booli mid kale ayay Somaliland ku leedahay isla Addis Ababa booli taas maxay dhaa looga qarsaday baa ku su'aal sidoo kale inta dhowr wadan ayaa jira oo xafiisyo marna loogu yeero mataqaana ay sheegeen horumarin marna loogu yeero qunsuliyad marna wax kale loogu yeero laakiin marna safaarad loogu yeeray Nairobi ka furan yihiin Addis Ababa ka furan yihiin Djibouti ka furan yihiin horena uga furnay maamulo horaan si uun kale u ogolaaday marka way haboonaan lahayd in waa hore laga dagaalamo dabcan duruufaha waaga jiray yaa unba ogolaaday in saa u furnaadaan laakiin waa howlaha hadda noo yaala kamid tahay mataqaana inaan ka howlgal hadduu ilaa yiraahdo sida ognahay anaga dalka Itoobiya waxaan ku leenahay danjirka asaga ah ma la socday heshiiska ka dhacay Itoobiya iyo maamulka Somaliland hadduu la socdana
ma idin soo wargeliyey idinka iyo xafiiskii ra'iisul wasaaraha su-aashayda labaadna waxaa waaye mudane wasiir sidoo kale danjirkeena ma ogaa heshiiskii amniga aad hadday iiga jawaabtay ma ogaa markii ay labada dalkeena iyo dalka Itoobiya saxiixanayeen goobjoog ma ka ahaa danjiruhu uu ka warhayay heshiiskan heshiis qarsoodi ma ahayn mid golaha wasiirada maray wasaaradda cadaaladda maray garsoorka maray ayuu ahaa contentigiisana waa la wada waa golaha wasiirada ansixiyay marka wax uu safiirku ka qaban karay amba uu ka digi kara ma jirin waxaan wax horay dawladda oo dhan ay u wada ogeed bay ahayd heshiiska wax ku qoran heshiiskan kale oo hadda Itoobiya ma heshiiskan badda Itoobiya wasiir safiirku muusan ogeyn hadduu ogaana wuu noo sheegi lahaa dabcan abiye tan iyo khudbadii uu ka jeediyey baarlamaanka ee uu yidhi bad baan u baahanahay nuxnux waa iska jirtay Eritrea ku socdaa Djibouti ku socdaa Soomaaliya ku socdaa waa jirtay laakiin wax concrete ah oo la ogaa haba yaraatay ma jirin safiirkan waxba kuma san ogeyn haba yaraatay miyay Soomaaliya la noqon doontaa heshiiskii DBD walda si mugdiga looga saaro waxay Itoobiya ay imika tixraacayso oo ah in Somaliland ay si madax banaan horey heshiis ula gashay Imaaraadka ay ku wada loo yaqaan review ama naqtiin dhammaan heshiisyadii horey ay u galeen maamul goboleedyadu ay la xiriira arrimaha badaha la xiriira waa shaqa ka socoto marka go'aan baa ka soo bixi doona hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah marka hore processka ama nidaamka heshiisyada loo galo waxaa dhigaya xeerarka waxaa dhigaya golaha wasiirada marka heshiis aan golaha wasiirada marin dibadda laguma saxiixi karo su-aashaada ah arrimaha dibadda ma raacaan laakiin safiirada noo jooga dalalka heshiiska lagu galayo yaa mar walba goobjoog ka ahaada mataqaana marka wufuudaas ay ka qayb galayaan shirarka ay kula shirayaan mataqaana wadamada ay martida u yihiin marka arrimaha dibadda waxaa wakiil ka ah safiirka hadda dalkaas jooga ayaa wakiil ka ah waxaa jirta ciidamo badan oo Itoobiyaan oo dalkeena ku sugan kuwa ku joogan Amazon mandate-keeda iyo kuwa carrada ka badan oo dharcad ah ciidamada ugu badan waxay joogan koonfur galbeed iyo I don't know inay Jubbaland way joogan sidaan jeclahay Puntland ma garanayo but adiga isku soo duduub waxaa jirta maamulo goboleeda qaarkood ay joogaan so ma dhici karto militariga hadda inta u jooga in ay is abaabulaan intaan ka sugayno banaankaas wax nooga imaado in gudaha dhaxdiisa haday duulimaad bilaabato maadaama madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si bareer uu masaajidka ugu sheego uu dhahay Itoobiya waa cadowgeena koowaad ee maanta aan leenahay dalka Soomaaliya inta aan sugayno inuu dagaal nooga imaado lughaye iyo dhankaas inay nagala soo galo soo lagama yaabo inaan gudaha noogala qaadi karo maxaysan ilaa hadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo guud ahaanba dan qaran aysan tilaabo uga qaadan militariga hadda joogo ayadoon saaxiibo badan aan leenahay sidii Eritrea ay nagu caawin karto military sida dalka Masar madaxweynahooda Cabdilcasiis uu ku dhawaaqay uu dhahay Soomaaliya ilaa iyo 1960 waxaan nahay dal saaxiib oo nala soo halgameen waxaan diyaar u nahay in aan diiga awooyaasheen daactay inaan gudno diyaaran u nahay tira dalka Masar madaxweynahooda dhahay miyaysan ahayn in aan hadeertan intay arrin dhowdahay inaan tilaabo caynkaas qaadno dalalka saaxiibaha nala ah iyo sida Turkiya iyo Masar iyo Eritrea inaan ciidan military ka soo qaadano iyo macawisleydeena isku darsano si looga saaro dalka ciidamadan Itoobiya oo ku joogto mandate-ka Amazon maxaa ilaa hadeertan Amazonta iyo African Unionta loo wargelin oo la dhihin Itoobiya nagala baxda ciidankeeda isla Itoobiyada ahna su'aasheeda kale waxa way safiirka Itoobiya ilaa hadeertan dalkeena ma jooga mase wuu ka baxay waxa kale toon raacsan su'aasha ah mudane wasiir dagaalka hadda Itoobiya nagu hayso
way cadaysatay intaasoo sanad ka horetay sheegatay inay badeena qaadanayso ayagoo noo sheegaan ayaanan ka difdoonin hadda markii noola sheegana waxa u madaa adduunka sideedaba markuu dagaal caynkan ee nagula soo qaado oo lagu xadgudbo tilaabooyinka ugu horeta oo diblomaasiyad la qaado waxa waaye in safiirka Ethiopia dalka laga bixiyo effective immediately safiirka Ethiopia wuxuu dhex degan yahay madaxtooyada wuu baxaa maqalnay haddana wuu joogaa diyaaradii Ethiopia ilaa hadda tan dalkeena way ka shaqeysaa ma garanayo sababta ilaa hadda u joogto qaadkooda ganacsigooda ilaa hadda tan socda oo askarteen ay dabadaba ku noqoto ayaga askartooda qaadna ma cunaan kuweena unbaa muqadaraadkooda cunaan iyo dhallinyaradeena ciidankoodina wuu joogaa marka maxay tahay gaabsiga haddaad wasaarad tihiin iyo haddaad dan qaran tabo diblomaasiyadda sideeda ma aha masaajid ama xaflad laga hadlo la dhaho dagaalan diyaar u nahay not 1 inch dalkeena ma bixinayna ma aha action way maanta waa 15 taariikhda which means 2 isbuuc baa laga joogaa maalinta Ethiopia tilaabadan qaad ilaa hadeertan anagana wax tilaabo oon muujino oo diblomaasiyad ma jirto marka mudane wasiir arintaas aan rabaa arinta militariga arinta ku saabsan qunsulka Ethiopia dalkeena joogay ganacsigooda ay ugu horeyso diyaaradda iyo qaadka gudoomiye waxbaad ka hadashay laakiin waxaan ka jawaabayaa kaliya intiga qosaysa diblomaasiyadii arrimaha dibadda dabcan safiirka Ethiopia dalka hadda uu ka tagay isaga iskii uga tagay anaga ma aanan bixin haduu doonana birit uu soo laaban karaa wana weli ma aanan gaarin go'aan inaan xiriirka goyn ma aanan gaarin taas waa escalation oo level kalenta waaye anaga levelka u horeeyay aan qaadno ahaa inaan u yeerano safiirkeena level kale ku xigi doono oo dawladda ay talaaween badan dawladda u qorsheysan ay qaadi doontaa hadda halka aan ka sheegay qasab ma aha arrimaha ciidamadana waa dad ku howlan baa jiro ka shaqeynaya qiimeynaya mataqaana munaasibnimada iyo xilliga ay ku haboon tahay marka aydan waxa u deynaya dadka shaqada ku leh arrimaha ganacsiga iyo qaadka dabcan talaawooyinka naqdinka lagu wada kamid tahay dawladdu talaawooyinka ay qaadi doontaa appropriate ku ah hadba actionka ay suubiyaan dagaalku waa bilow marka talaawooyinka way ku xigi doonaan haduu ilaahay insha Allah wasiir hal su'aal oo kuursada horta igama jawaabin qasab ma ahana jawaab ma aha waxa laga rabaa inaad dhahdid hadeertan iima diyaarsana waxaan ku jawaabi lahaa ama diyaar umiye